aan ku bilownay sida warkaba aad ku maqlayseen madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden ayaa jeediyey khudbadiisii sanadlaha ahayd ee State of the Union Address oo sanadkan uu kaga hadlay xilli dagaalka uu ka jiro Yurub isla markaasina Mareykanku uusan weli ku guuleysan sidoo kale la dagaalanka xanuunka COVID-19ka wariyaha VOA Maxamed Cabdisandheero stuudiyaha igula sugan ayaa haddaba isha ku hayay khudbadaasi iyo waxyaabihii ugu waaweynaa Maxamed. mahadsanid Zahra. khudbadda ayaa bilaabatay 9:00 fiidnimo xilliga Washington oo hadda laga joogo saacad iyo 35 daqiiqadood goordhoweydna soo gabagabowday. khudbaddan oo ah tiisii u horreysay ayaa imanaysa xilli ra'yi ururin dadka laga qaaday ay meeshii u hooseysay taagan tahay marka laga hadlayo sida ula tacaalay dalka Ruushka oo hadda weerar kula jira dalka Ukraine oo taageero ka helay wadamada reer galbeedka oo Mareykanku hormuud ka yahay. madaxweyne Biden ayaa khudbadiisa ku bilaabay ka hadalka xanuunka COVID-19. waxau yidhi sanadkii hore waxaa khudbaddii xaaladda waddanka ee State of the Union naga baajiyey xanuunka COVID-19 hase yeeshee sanadkan waan wada joognaa. intaas kadib ayuu isla markiiba gudagalay ka hadalka dagaalku Ruushku ku qaaday dalka deriska ah ee Ukraine. 6 days ago, Russia's Vladimir Putin sought to shake the very foundations of the free world. waxa uu yidhi 6 maalmood ka hor madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin waxa uu doonay inuu ruuxo aas-aaska dunida xorta ah isagoo filay inuu u loodin karo wadiiqooyinkiisa cabsida leh hase yeeshee si xun buu wax u xisaabiyey. waxa uu maleeyey in Ukraine uu dul mari karo dunidana ay u jabayso. arrintaas ka duwan waxa uu la kulmay derbi xoog badan oo aanu weligii malaysanaynin. waxa uu la kulmay dadka reer Ukraine. madaxweyne Biden ayaa markaas kadib soo dhoweeyey danjiraha Ukraine ee Mareykanka oo qof dumar ah taasoo ag fadhiday xaaskiisa Dr. Jill Biden. taariikhdu waxayna bartay casharka ah markii dictatoriska aan lagula xisaabtamin xadgudubyadooda qalalaso dheeraad ah ayay abuuraan ayuu yidhi Biden, wayna sii wadayaan. markaas ayaa kharashka Amerika iyo dunida kala bixisaaba oo kor u sii kacaya. waana sababta loo abuuray gaashaanbuurta NATO si ay u ilaaliso nabadda iyo xasiloonida Yurub kadib dagaalkii labaad ee adduunka. The United States is a member along with 29 other nations. It matters. American diplomacy matters. American resolve matters. Mareykanku waa xubin ka tirsan ururka NATO ay ku weheliyaan 29 waddan oo kale. waxa uu yidhi weerarkii u dambeeyey Putin ku qaaday Ukraine waxa uu ahaa mid uu sii qorsheeyey isaga oon laga cadhaysinin. waxa uu diiday dadaallo xiriir ah oo dhinaca diblomaasiyadda ah. Putin ayaa isku dayey inuu NATO qaybiyo oo uu Mareykankana kala qaybiyo hase yeeshee waanu diidnay. waxa uu yidhi xanuun badan ayaan ku abuurnay Russia waxaanan caawinay dadka reer Ukraine. Putin is now isolated from the world more than he has ever been. Together, Putin hadda waa go'doon si ka badan si kasta oo hore. annaga oo la shaqaynayna xulafadeenna waxaan hadda dhaqan gelinaynaa cunaqabatayn dhaqaale oo xoog badan. waxaan bangiyada ugu waaweyn Ruushka ka goynaynaa hannaanka maaliyadda ee caalamka. cunaqabatayno xoog badan ayaan sidoo kale dul saaraynaa ragga lacagta leh ee Ruushka. waa idiin soo soconnaa oo aan idinka cunaqabatayn doonaa dhammaan wax walba ayuu yidhi. maruu ka hadlayey taageerada Ukraine waxa uu yidhi, We're giving more than $1 billion of direct assistance to Ukraine and will continue to aid the Ukrainian people as they defend their country and help ease their suffering. waxaan Ukraine siinaynaa lacag ka badan $1 bilyan taasoo ah taageero toos ah. waan sii wadaynaa gargaarka dadka reer Ukraine xilli ay dalkooda difaacayaan. waxaanan ka caawinaynaa in dhibta haysata aan ka khafifino. Biden ayaa yidhi ciidankeennu kuma jiraan dagaalka Ukraine sida Ruushku ku andacoonayo, laakiin waxaan taageeraynaa xubnaha NATO. inkastoo laga yaabo in Putin uu guulo ka keeno furimaha dagaalka, laakiin kharash badan ayaa ugu kacaya xilliga fog ayuu yidhi. maruu ka hadlayey hoos u dhaca ku iman kara tamarta adduunka ayaa waxa uu yidhi, Tonight, I can announce the United States has worked with 30 other countries to release 60 million barrels of oil from reserves around the world. caawa waxaan ku dhawaaqayaa in Mareykanku wada shaqayn la yeeshay 30 dal oo kale si ay u soo fasaxaan 60 milyan oo barmiil oo shidaalka kaydka ah. waxa uu yidhi Amerika ayaa hormuud ka noqonaysa dadaalkan. 30 milyan oo barmiil ayaan ka soo fasaxnay kaydkeena istaraatiijiga ah
diyaar ayaanan u nahay inaan sii kordhinno haddii loo baahdo. dhinaca kale madaxweyne biden ayaa ka hadlay qiimaha sare ee cuntada. waa sababta aan u keennay qorshaha badbaadada maraykanka amaba american rescue plan ayuu yidhi. qodobkaas uu madaxweynuhu ka hadlayey ayaa dareen kala duwan ay ka bixiyeen xubnaha labada xisbi, iyadoo jamhuuriguna ay ku ooriyeen halka dimuqraadiguna ay u sacbiyeen. waxau ka hadlay in dhaqaaluhu uu wanaagsan yahay. As I did 4 days ago, I've nominated a Circuit Court of Appeals Ketanji Brown Jackson, one of our nation's top legal minds. madaxweynaha ayaa sidaad maqlayseen ka hadlay xubin uu dhowaan 4 maalmood ka hor qiyaastii u magacaabay maxkamadda sare ee maraykanka, taasoo ah haweeney bulshada madow ee maraykanka soo jeeda laguna magacaabo Ketanji Brown. madaxweynaha ayaa dhinaca kale ka hadlay xanuunka COVID-19 iyo sida uu saameeyey nolosha dadka maraykanka. waxa uu yidhi muddo 2 sano ka badan COVID-19 waxa uu raad ku yeeshay go'aan kasta oo nolosheenna la xiriira iyo nolosha dalkeenna. waxa uu yidhi waan ogahay inaan daalannahay oon cadhaysannahay oo aan khaatiyaan taagannahay, laakiin dadaalada aan samaynay, adkaysigiina iyo adeegyada aan haysanno, caawa waxaan odhan karaa horay ayaanu soconnaa, nolol caadiya ayaanan ku soo noqonaynaa, waxaan gaarnay heerkii u hooseeyey ee fiditaanka xanuunkan. madaxweynaha ayaa sidoo kale ka hadlay ciidamada booliiska iyo muhiimadda ay u leeyihiin nabadgelyada bulshada. waxa uu sheegay in qorshihiisa American Rescue Plan uu ku daray dhaqaale lagu tababaro booliiska. waxa uu diiday baaqyada sheegaya in booliiska lacagta laga gooyo. waxa uu yidhi tababar wanaagsan ayaa xallin kara dhibaatada ka dhalata wada shaqaynta booliiska iyo bulshooyinka. Zahra.